wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba nagala socotaan. halkani waa Wacaal Media. barnaamijkeenna waa qaybtii labaad ee halxiraalihii saddex geeskii Bermuda. sida ay sheegeen taariikhyahanadu, ma jirta caalamka meelaanan ka ahayn Bermuda oo in ka badan 50 sano ku dhowaad hal qarni qarsanaysay xog ilaa maantana lala yaaban yahay sida ay xogtaasi qarsoodida ku noqotay. waa meesha ugu cabsida badan ee qalbiga aadanaha ku soo dhacdo marka laga hadlayo arrimaha badaha, taasoo sababtay qaybo badan oo dadkii halkaasi u safri ahaa in aysan nolol ku soo laabanin, halkaasi oo la sheegay in ay macquul tahay in ay ku nool yihiin qaarumaad kale, taasi oo suurtagelisay in wixii aadaba aysan dib u soo laabanin. sidoo kale goobtani waxa ay waxba kama jiraan ka soo qaaday dhoolatusyada militariga ee dalka Mareykanka uu sameeyo, isagoo awood u yeelan waayay xitaa in uu booqdo ama uu wax ka sheego xogta dhabta ah ee ka jirta Bermuda. inkastoo xogo isdhaafsan laga keenay halkaasi, haddana weli waxaa socday baaritaan qaatay ilaa 50 sano, kaasi oo ugu dambeynna soo gabagaboobay. barnaamijkeenna maanta waxa aynu uga hadli doonaa duuliyaha keliya ee la sheegay in uu ka soo badbaaday halkaasi, ogolaadayna in uu la hadlo warbaahinta, walow la sheegay dad kale in ay jiraan oo ka soo badbaaday halkaasi, laakiin waxaa ku adkaatay noloshoodii dambe inay dib ula qabsadaan. waxa ayna inta badan ku nool yihiin nolol argagax ah oo weliba meediyada ay diideen inay hor yimaadaan. saddexagalka Bermuda waxa uu ku yaalaa Sargasso Sea halka la yiraahdo, waana saddex jasiiradood u dhaxeeya. gees waxaa ka haysta magaalada Miami, halka labada geesoo kale ay kala haystaan jasiiradda Bermuda iyo jasiiradda Puerto Rico. walow la isu khilaafsan yahay masaafada ay ku fadhido Bermuda, haddana inta badan khubarada baaritaanada ku sameeyay arrimaha saddexagalkan waxa ay sheegaan in ay ku fadhido dhul la eg 1,300,000 kiiloomitir oo iskuweer ah. halkani waxaa ku safro maraakiib ganacsi ah, kuwa raaxo, iyo sidoo kaleeta diyaarada qaar iskaga kala goosha waddanka Mareykanka iyo jasiirado kale. laakiin sida oo ay tahay, haddana weli waxaan maanka dadka ka bixaynin dhibaatooyinkii ay la kulmeen kuwii ku kor safray saddexagalkan. dhacdadii ugu xumayd waxa ay la kowsatay duulimaadkii 19 ee ay si wada jir ah u wada galeen 5 diyaaradood ee uu lahaa dalka Mareykanka, kuwaasi oo sameynayay dhoolatus military. waxa ayna ahayd maalintaasi 5 Diseembar 1945, xilligaasi oo dalka Mareykanka uu qabanayay dhoolatus military oo uu ku muujinayay awoodiisa dhanka cirka. 5 diyaaradood ayaa waxa ay dul haadeen Bermuda, laakiin intaas wixii ka dambeeyay cidna ma oga halkii u dambeysay, sidaa ayayna ku lumeen, sheekadoodina lagu xiray. 14 duuliye ee diyaaradahaasi waday iyo 13 rakaab ahaa, intaba ilaa hadda lama oga halkii u dambeysay. laga bilaabo maalinkaasi ilaa maanta oo la joogo, saddexagalka Bermuda waxa ay ka mid noqotay meelaha caalamka loogu hadal hayn badan yahay marka ay noqoto dhanka badda. sidoo kale goobtan waxa ay hoy u noqotay qisooyin fara badan oo ilaa hadda la xallin la yahay dhammaadkooda. qoysas isjeclaa ayay kala reebtay, sidoo kaleetana malaayiin dollar hanti ku fadhidayna waa ay laqday. naxariis darradaasi goobtaasi lagu sheegay ayaa waxa ay dadku qaar ugu magac dareen saddexagalkii shaydaanka. buugaag ayaa laga qoray, joornaallo ayaa laga soo daabacay, warbixinno ayaa laga diyaariyey, waraysiyo ayaa laga bixiyey. tan iyo maantana ma jirto si rasmi ah wax u sheegi kara halkii ay ku dambeeyeen kuwii ku lumay safarkii ay ugu ambabaxeen Bermuda. kasoo bilow sahmiyihii Talyaani ee Christopher Columbus ku keen Donald Trump oo maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka, cidna si rasmi ah awood uma laha in ay sheegto halkii ay ku dambeeyeen dadkii ay laqday saddexagalkaasi. Christopher Columbus, sahmiyihii Talyaani, ayaa waxa uu sheegay in xilli uu ku ag safrayay saddexagalkaasi ay dhammaan waxyaabihii doontiisa ka koobneed ay istaageen, weliba uu arkay nal aanan ahayn midka caadiga ah oo iftiinkiisu uu aad u weynaa. sidoo kale waxa uu sheegay in qoom aanan la oqoonin halkaasi ay ka muuqdeen. inta sida rasmiga ah loo xaqiijiyey, hal markab oo ah kuwa rakaabka qaada iyo 3 diyaaradood oo aysan ku jirin 5 diyaaradood ee dalka Mareykanka militarigiisa ay lahaayeen ayaa si rasmi ah godkaasi ugu dhexdhacay. ilaa haddana lama haayo raadkooda.
gurigooda. goobtan ayaa sidoo kale taariikhdu waxa ay ku soo kordhisay in laba guri oo dhaadheer oo ahaa kuwa laga haga maraakiibta ay laqday, kuwaasi oo ku yaalay jasiirad halkaasi u dhow. ilaa haddana aanan la aqoonin wixii ku dhacay, laakiin saynisyahanadu ay sheegaan duufaan halkaasi ku dhufatay inay dhammaan burburisay wixii agab ahaa oo yaalay guryahaasi. sida rasmiga ah ee la shaaciyey 900 oo qof ayay qabtaa halkaasi noloshoodu. waxaa sidoo kaleeta la sheegay inay ka soo badbaadeen 19 qof oo badankoodu ilaa maanta ay la nool yihiin dhibaatadii ay kala soo kulmeen godkaasi, weliba cabsi iyo argagax nolol ah ay wajahayaan. laakiin bayloodka la yidhaahda Bruce Gannon waxa uu diyaar u noqday inuu caalamka la qaybsado waxyaabihii uu ku soo arkay godkaasi markii uu diyaarad dul mariyey, isagoo weliba xilligaasi wax aqoon ah aanan u lahayn saddex xagalkaasi. 4 Diseembar 1970 Bruce oo ay wehliyeen aabihiis iyo saaxiibkii ayaa diyaarad yar waxa ay ka qaateen jasiiradda la yidhaahdo Andros, waxa ayna ku sii socdeen magaalada Miami. laakiin Bruce oo ah baylot ma aysan ahayn duulimaadkiisii ugu horreeyay ee uu kaga duulaya Andros isagoo aadaya Miami. diyaaraddii waxa ay ka duushay Andros waxa ayna u jihaysatay magaalada Miami. safarka waxa uu qaadanayaa 1 saac iyo 30 daqiiqo. diyaaradduna magaceeda waxaa la yidhaahdaa Beechcraft Bonanza. waxa ay ahayd diyaarad 1 injin leh kuna filan inay safarkaasi gasho. diyaaraddu markii ay hawada gashay ayaa Bruce waxa uu dareemay in daruuro aanan hore loo arki jirin ay diyaaraddu ku soo wajahan yihiin. waxa uuna go'aansaday in uu diyaaradda kor u qaado ilaa 300 oo mitir. diyaaraddii markii uu kor u qaaday, daruurihii ayaaba soo daba kacay, oo weliba halkii uu diyaaradda geeyey ayuu daruuro kaleeto oo isla nooci ah kala kulmay. si kastoo ahaataba, isagoo khibraddiisa isticmaalaya ayaa waxa uu ku guulaystay in uu ka dhex bixiyo diyaaraddii daruurahaasi. 10 daqiiqo oo safar ah kadib, haddana waxa uu arkay daruuro kaleeto oo weliba kuwii hore ka duwan. diyaaradduna markan waxa ay hawada ku jirtaa 3500 oo mitir. sida uu Bruce sheegay, daruurahaas ayaa waxa ay ahaayeen kuwo aad u madow, aadna u malayso in ay roob xambaarsan yihiin. Bruce oo aanan haysanin waddo kale ayaa waxa uu go'aan ku gaaray inuu ku dhex safro daruurtaasi madowga ah. laakiin waxa uu sheegay in daruurtu aysan ahayn midii uu horey u arki jiray. diyaaraddu markay horey u gashay daruurihii ayaa wax walba waxay isu bedeleen madow. dhulkii dhan waa uu iswada xiray. sidoo kaleetana baylotku waxaa ku adkaatay inuu arko waxyaabaha hortiisa ah. sidaasna waxa uu ku go'aansaday inuu iska socdo isagoo indhala'aan ah oo weliba aanan kala garanaynin halka uu u jeedo iyo meesha uu ka yimid. dhowr daqiiqo markii ay diyaaraddu ku dhex safraysay daruurahaasi ayaa baylotkii waxa uu arkay iftiin aad u xoog badan oo xitaa aanan la mid ahayn midka hilaaca. walow xilligaasi uusan roob da'aynin, haddana iftiinkaasi waxa uu ahaa mid meel walba iftiimiyey. dadkii diyaaradda saarnaa ayaa waxaa soo wajahay cabsi iyo weliba argagax aynan weligood la kulmin. markii muddo safrayay kadib ayaa Bruce waxa uu arkay daruuruhu inaysan ahayn kuwa sii dhammaanaya, weliba ay sameeyeen wax sida garaangarti oo kale ah oo dhexda ka madow. markaasi kadib Bruce waxa uu caddaatay inaysan jirin meel kale uga bixi kara daruurahani. keliya waxa uu go'aansaday inuu ku sii dhex safro daruurta noocaasi ah, isagoo weliba dareensanaa khatarta ay xambaarsan tahay haddii uu ku dhex safro. laakiin nasiib wanaag, dhowr daqiiqo markii uu sii safrayay ayaa hortiisa waxa uu ka arkay meel duleel ah oo laga dhex bixi karo. waxa uuna go'aansaday duleelkaasi inuu raaco si uu diyaaradda halkaasi uga dhex bixiyo. sidoo kale isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay goobtu inuu ballaceeda la ekaa 1.5 kiiloomitir, halka dhererkeedana uu la ekaa 16 kiiloomitir, taasi oo u suurtagelisay inuu ku dhex safro godkaasi caddaanka ahaa. waxa uu sheegay markii uu diyaaraddu aadiyey halkaasi inuu arkayay buluugga cirka, taasna ay u horseeday in ay farxaan isaga iyo dadkii kale ee diyaaradda la saarnaa, weliba ay quudareeyaan in ay ka bixi doonaan khatartan ay dhexda ka taagan yihiin. laakiin markii ay daqiiqado yar kusii dhex safrayaan ayaa waxa uu bilaabay godkii inuu afka soo xirto oo weliba gadaal dambe laga waayo cirkii la arkayay. dhulkii dhan waxaa isku gadaamay mugdi iyo waxaad u malaysa qiiq. dhammaan waxaa istaagay jiheeyayaashii diyaaradda, sidoo kalena qaybo ka mid ah matoorkii waxa ay bilaabeen inay qayliyaan, taasi oo weliba cabsi ku sii abuurtay baylotkii iyo dadkii kale ee la saarnaa diyaaradda. waxa uu damcay in uu la xiriiro qaybta raadaarka, laakiin wax raadaar ah oo u soo qabanayay ma aysan jirin. daqiiqado kadib waxaa dib loola soo xiriiray Bruce, waxaana loo sheegay in Miami ay dhaafeen oo weliba duleedka Miami ay sii marayaan.
taasi oo isaga yaab ku abuurtay sababtoo ah Miami waxaa laga rabay inay u safrto diyaaraddu 1 saac iyo bar haddana safarkoodu waxa uu ahaa celcelis ahaan 45 daqiiqo Bruce ayaa waxa ay u suurta gashay inuu dib ugu soo celiyo diyaaraddii Miami sidaana uu ku dago markii diyaaraddu ay degtay ayaa waxa uu fiiriyay batroolkii uu isticmaalay mise batroolkii waaba sidiisii oo waxba iskama aysan bedelin halka diyaaradduna ay safraysay muddo 45 daqiiqo ah arrinkaasi ayaa waxa uu dhaliyay la yaab kadibna waxa la furay baaritaano muddo kadib baaritaanada ayaa waxa lagu soo cadeeyay in diyaaraddu ay la kulantay wax la yiraahdo tamarta madow taasi oo laga dhaxelaya daruuraha madowga ah ee ku dul aadan saddex xagalka Bermuda waxaana la sheegay markii dambe pilotka iyo diyaaradiisu kaliya in qayb kamid ah Bermuda ay soo mareen oo aynan dhaxda ka marin haddii dhaxda ay ka mari lahaayeen qatar inta ka badan ay si wajihi lahaayeen maalinkaasi wixii ka dambeeyay Bruce waxa uu go'aansaday inuusan mar dambe ku safrin wadadaasi daawadayaal inta waxaynu ku koobayna barnaamijkeeni qaybtii labaad ee hal xiraalihii saddex xagalkii Bermuda qaybteena saddexaad inta aynu ku kulmayno waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already done so. Click on the bell in order to receive timely notifications of new, fascinating, and interesting videos that are waiting for you ahead.